شاء الله. qodobka saddexaad waxa weeye u qor si muuqata kuna qor qalin leh qad buluug ah. yani waxa weeye markaad jawaabayso jawaabahaaga waa inaad ku qortaa si muuqata, yani fartan aad ka qurxiso. qalin markaa qadiisu ay tahay buluugna waa inaad ku qortaa. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبو بكر محمد يلحو إن شاء الله تعالى وحين نشرح دونا امتحانك دولة سنة كان لبدا كون كوي لباتن لبدا كون لبي لباتن وانا فصل كسديداد ماددنا ومادد حساب هدي الله إدمايو. waxaan isku dayi doonaa inaan ku soo koobo guud ahaan laba qaybood haddii suurgal noqoto. marka qaybta ugu horeysa ayaynu bilaabi doonaaye. ugu horeyn ardaygu waa inuu buuxiyaa boggan horeeyaba wax shaqo ama ahaan kaliya ardayga macluumaadkiisa iyo waxyaabaha laga rabo ayaa lagu sheegayaa. marka magaca ardayga oo afaran ayuu halkaas ku buuxin doonaa, waa marka koobaad. halkaana wuxuu gelin doonaa roll numberka kaadhka uu haysto ee la siinayo ardayga, ayuu tirada numberka roll numberka ayuu gelin doonaa. dugsiga uu dhigto ayuu sheegi doonaa magaciisa, kadibna xarunta ayuu halkaa ku gelin doonaa oo imtixaanka ku gelayo. fadlan akhri, halka hoose waxaa yara ku yaalo tilmaamo lagu siinayo, si fiican isaga eg insha allahu tacaala. fadlan akhri tilmaamaha si kaadsiyo leh, si tartiib yani waa akhri ka hor inta aadan ka jawaabin su'aalaha. bal qodobadan shanta qodob ah aynu isla eegno. qodobka koowaad waxa weeye ku qor meelaha bannaan magaca oo dhammaystiran, roll numberka dugsiga iyo xarunta. halkaas korood kusoo qori doontaa, ma arkaysaan magaca oo furan hebel 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 hebel, roll numberka dugsiga aad dhigato, xarunta aad ku gelayso imtixaanka. qodob kale waxa weeye ka jawaab dhammaan su'aalaha. su-aashii aan laga jawaabin lama saxayo. su-aalaha inaad ka jawaabto isku day insha allahu tacaala. su-aal haba ka teginba, aslanba su-aal lagu weydiiyey jawaabta ha qaldanaato haddii doonto, balse isku day inaad ka jawaabto insha allahu tacaala. su-aal aad taqaanan ha ka tegin insha allah. qodobka saddexaad waxa weeye u qor si muuqata kuna qor qalin leh qad buluug ah. yani waxa weeye markaad jawaabayso jawaabahaaga waa inaad ku qortaa si muuqata, yani fartan aad ka qurxiso. qalin markaa qadiisu ay tahay buluugna waa inaad ku qortaa. ya qalin cagaar ama guduud ama madow iyo lama ogola. marka qalin oo qadiisu ay tahay buluug inaad markaas ku qortaa. qodobka afaraad ayaa ah isku day in aad ka jawaabto dhammaan su'aalaha. qodobka waa kan horaan kusoo sheegay, qodobkan waa muhiim wey. su'aalaha inaad ka jawaabto dhammaantood isku day. ya hasdhihin kan kama jawaabi kartid iyo maya, su-aasha jawaabteeda ha qaldanaato laa ba'as insha allah, balse jawaabta inaad ka jawaabto isku day insha allah. qodobka ugu dambeeya ee shanaadna waxa weeye ku toosnow dhammaan shuruucda imtixaanka iyo waqtiga la xadiday. imtixaanku wuxuu leeyahay shuruudo ardayga loo ogol yahay iyo kuwa aan la ogolayn. inta marka lagu ogol yahay ha dhaafin, waxaan lagu ogolayn ha samaynin. waqtiga imtixaankuna xilliga uu yahay ka hor inaad meesha tagto isku day, si markaas aad adigoo nastay oo xoogaa yara degan imtixaanka markaas aad u gasho. hubi in imtixaanku ka kooban yahay 5 bog. imtixaanku inuu ka kooban yahay 5 bog iska hubi, laakiin imtixaanka laga hadlayo waa imtixaankan. imtixaanada kale waxa weeye 6 bog ay noqon karaan, 4 bog ama 3 bog, laakiin warqad kasta ee lagu siiyo iska hubi imtixaanka inuu ka kooban yahay bogaga inta lagugu xisi doono inta ay yihiin. waad iska hubinaysaa, kadib inaad jawaabaha u gudbi doontaa. haddaasan haysan bogagaas ama waxay ka maqan yihiinna waxaad la wadaagi doontaa insha allahu tacaala muraaqibka markaas jooga ee ardayda ilaalinayo. waayahay imtixaanka inuu gudageli doonaa insha allahu tacaala ee qaybta koobaad ee imtixaanka waxa weeye ba goobo geli jawaabta saxda ah. halkaas in arkaynu malaynayaa goobo geli jawaabta saxda, si tartiib ah u sharixi doonaa. marka 40 dhibcood baa lagu saxayaa, 40 dhibcood ayaa lagu saxayaa qaybtan koobaad. number 2 aan shaqadii bilowno. marka ururka soo koobaya dhammaan ku tiirsanayaasha ururada waxaa lagu magacaabaa ba urur guud, ta urur duleed, ja urur maran, xa urur dhextaal. haddaba jawaabta saxda ah
ayaa waxay noqonaysaa xarafka ba. sidaas daraaddeed waxaynu goobo gelinaynaa xarafka ba, waayo ururka soo koobaya dhammaan ku tiirsanayaasha ururada kale ayaa waxaa lagu magacaabaa urur guud. waayahay su-aashaas sidaas ayaynu uga jawaabnay. su-aasha labaad ayaynu u gudbi doonaa haddii alla idmahayo. haddii ururka guud ee ga ku tiirsanayaashiisu ay yihiin buug, qalin, mastarad, sabuurad, jeeso. ururka ba'na ku tiirsanayaashiisu ay yihiin buug, mastarad, jeeso. urur duleedka ba waa urur duleedka ba wuxuu noqonayaa ba oo ah qalin iyo mastarad, ta qalin jeeso, ja qalin buug ama waaxa oo ah qalin iyo sabuurad. haddaba waxaynu fiirinaynaa ku tiirsanayaasha ku jira ururka guud ee aan ku jirin ururka ba oo ah ururka la tilmaamayo. haddaba waxaynu dhihi doonaa imika buug. haddaynu halkaa ka eegno buug wuxuu ku jiraa ururka maxaan ku yidhaahdaye ba, marka buug waynu ka reebaynaa ururka guud. mastarad waxay ku jirtaa markaas ururka ba, mastaradna waynu ka reebaynaa. jeeso waxay ku jirtaa ururka ba, jeesana waynu ka reebaynaa. sidaas daraaddeed ayaa urur duleedka ba waxa uu noqon doonaa inta aan calaamadda saara maahan inta kale oo ah qalin iyo sabuurad. haddaba xarafka waxaynu eegi doonaa qalin iyo sabuurad ay u yihiin ku tiirsanyaal. haddaba waa xarafka xa. sidaas daraaddeed waxaanu goobo gelinaynaa xarafka xa oo ah qalin, sabuurad. su-aasha waxaynu u gudbaynaa imika saddexaad. su-aasha saddexaad ayaa waxay u dhacaysaa sidani soo socota: tiro walba ama tiro waliba oo aan ahayn eber, muujiyaheeduna uu yahay eber, waxa ay la eg tahay. taa waa xeer ama xeerarka jibaarka iyo markaasi ka mid yahay. tiro walba oo muujiyaheedu eber yahay isla markaana tiradu aynaan eber ahayn waxaa soo baxaya ama uu la eg yahay waa hal. sidaas daraaddeed waxaynu goobo gelinaynaa xarafka ta oo markaas hal uu ku xusan yahay. marka waa xarafka ta waa hal. su-aasha afaraad ayaa ah: raadi mugga saddex jibaaranaha ku sawiran dhinaca midig. saddex jibaaranahan baynu eegi doonaa 9 iyo 9 iyo 9. dhinacyadiisa waa isku wada mid, waayo saddex jibaaranuhu saddexda waji uu leeyahayba waa isku mid. guud ahaan 6 waji ayuu leeyahay, balse laba lamaane ayay u yihiin, dhammaan wajiyadiisuna waa isku mid. sidaas daraaddeed waxaanu adeegsanaynaa qaacido lagu helo ama qaacidada aan ku helayno mugga saddex jibaaranaha. mugga saddex jibaaranaha waxaa lagu helaa haddaan mug male usoo gaabiyo, waxaa lagu helaa dhirirka uu leeyahay saddex jibaaranuhu oo la saddex jibaaray. maadaama marka dhirirka uu yahay 9 saddex jibaaray ama waa 9 sentimitir oo saddex jibaar. 9 sentimitir oo saddex jibaar. intaasna waxay la eg tahay numberkan laba jibaar baa saaran ama saddex jibaar. jibaarka saaran inta uu yahay ayaa intaasoo jeer numberka la isku dhiftaa. sidaas daraaddeed 9 sentimitir waxaan ku dhifanaynaa 9 sentimitir, haddana waxaan kusii dhifanaynaa 9 sentimitir. markaynu 9 sentimitir saddex jeer isku dhifanno ayaa waxaa soo baxaya 729. haddaan sentimitir isku dhifanno saddex jeerna waa sentimitir saddex jibaaran. sidaas daraaddeed jawaabta saxda ahi waxaynu ka baadi goobaynaa afartaa xaraf ee inala siiya midkood. haddaba waxay noqon doontaa xarafka ja oo halkaas waxaa yaala 729 sentimitir saddex jibaaran. haddaba xarafka ja ayaynu goobada gelinaynaa insha allahu tacaala. next waa su-aasha shanaad ayaynu u gudbi doonaa haddii alleh idmahayo. su-aasha maxay shanaad ayaynu u gudbi doonaa. su-aasha shanaad ayaa waxay ina leedahay qormo qoraalka gaaban ee 6 ku jibaaran 5. tirada 5 6da maaha ee tirada 5 waxaa loo yaqaanaa ardayow xeerarka kan iyaguna waxay ka mid yihiin markii la baranayay jibaarka
tirada kore ee shanta ee tirada lixda ku jibaaran tani sal baa la yiraahdaa lixda sal baa lagu magacaabaa shanta magaceedu waa muujiye ayagoo wada jiran jibaar baa la yiraahdaa sidaas daraadeed tirada hoose ee lixda ah haddii lagu weydiiyo waa basal balse tirada ku jibaaran lixda oo shan ah magaceedu waa muujiye sidaas daraadeed waxaanu baadi goobi doonaa xarafka ay ku xusan tahay muujiye waa xarafka xa sidaas daraadeed waxaynu goobo gelinaynaa xarafka xa waayahay su-aasha lixaad haddii mugga saddex jibaarane uu yahay 125 mitir saddex jibaaran dhinaca saddex jibaaranaha yani saddex jibaarana halkaa noogu sawiranba dhinacyadii dhinaca baa lagu soo qorayo balse muggiisa ayaa lagu sheegay marka waxaa laga doonayaa hal dhinac kasta ee uu leeyahay muggu ee uu leeyahay saddex jibaaranuhu muxuu noqonayaa qiimihiisu ama dhererkiisu haddaba mid waan ogaanaa sida hadda aan soo aragnayba mugga waxaa lagu helaa dhererka oo saddex jibaaran macnaha waa dhererka oo saddex la isku jeer la isku dhiftay sidaas daraadeed mugga maxaynu haynaa imika mugga waxayna la siiyey 125 mitir oo saddex jibaaran intaasaa waxayna egtaan leenahay dhererka oo ku jibaaran saddex marka waxaan doonayno waa dhererka si aan dhererka u soo saarno ayaan waxaanu samaynaynaa dhinac kasta inaynu ka saarno xidid saddex jibaaran marka waxaan leenahay 125 mitir oo ku jibaaran saddex waxaynu ka saaraynaa xidid ku jibaaran xidid saddex jibaar intaas waxay leegtaan leenahay dherer ku jibaaran saddex isna waxaan ka saaraynaa xidid saddex jibaar waxaa imika markaas la bixi doona saddex jibaarka iyo xididka oo saddex jibaaran baa isla bixi doona waxaa ku soo hari doona dherer halkaas aan ku soo shaqeyno 100 waxaan haynaa maxay 125 mitir saddex jibaaran waxay leegtahay dherer oo ku jibaaran saddex marka dhinacan waxaan gelinaynaa xidid saddex jibaar dhinacana xidid saddex jibaar ayaynu gelinaynaa sistraadeed xidid saddex jibaarka iyo jibaarka dhererka saaran baa isla baxaya dhererku markaas wuxuu la ekaanayaa 25 waxay ka imaanaysaa 5 mitir 25 mitir ku jibaaran saddex waxay ka imaanaysaa 5 mitir oo ku jibaaran saddex sidaas daraadeed jibaarkii waxaan saarnaa xidid saddex jibaarka markaas ayaa dhererku wuxuu kula mid noqon doonaa 5 mitir dhererku muxuu noqon doonaa 5 mitir marka jawaabtaas ayaynu eegi doonaayo isna waa xarafka ja halkaas marka ayaynu goobo gelinaynaa oo ah 5 mitir su-aasha waxaynu u gudbi doonaa insha allahu tacaala toddobaade marka aan u qorno 850,000 qormar saynis ahaan waxa ay noqonaysaa hadda waa yahay 800 iyo waxaan haynaa maxaa la siiyey 850,000 waa 850,000 saase soo maaha dhibicdu 850 sana loo qori karaa macnaha hadda 5 markaan qorayo waxaan qori karaa 5.0 dhibicda xaggan ka xijin kara marka waynu soo tirinayna waxaan leenahay dhibicdan kasoo saaraynaa 1 2 3 4 5 marka waa 8.5 lagu dhiftay 10 ku jibaaran inta aan tiriyey oo ah 5 sidaas daraadeed 8.5 lagu dhiftay 10 ku jibaaran 5 ayaa ah jawaabta saxda ah 8.5 lagu dhiftay 10 ku jibaaran 5 waatan waa xarafka ta weeye sidaas daraadeed waxaanu goobo gelinaynaa xarafka ta oo ah 8.5 lagu dhiftay 10 ku jibaaran 5 su-aasha 8aad xilliga sanad dugsiyeedka arday waliba waxa uu ku beeray deegaankiisa hal lagu dhiftay 10 ku jibaaran 4 oo geed haddii 1.5 lagu dhiftay 10 ku jibaaran 5 arday ay dhigato dugsi tirada geed ay beereen guud ahaan ardayda waa bata jaxa midkood waa yahay waxaan leenahay ardayda maxaan ku iraahday xilliga sanadkiisa arday walba waxa uu ku beeray deegaankiisa meeqa geed baa lagu beeray waxaa lagu beeray 1.5 waxaa lagu beeray halkan iyo imaawe waxaa lagu beeray 1.5 lagu dhiftay 10
maya 1.5 ma waxaa lagu beeray hal lagu dhiftay 10 ku jibaaran 4 guud ahaan ardayda wax beertayna waa imisa oo dugsiga dhigato waa 1.5 lagu dhiftay 10 ku jibaaran 5 1.5 lagu dhiftay 10 ku jibaaran 5 ugu horreyn waxaan sameyn doonaa u fiirso tan horta jibaar u qoran qormaseniska inuu saansaanta caadiga ka dhigan waxaan leenahay waa hal lagu dhiftay 10 ku jibaaran 4na waa 10,000 marka hal hadaan ku dhifana 10,000 waxaa ka soo baxaya 10,000 ka soo baxaya tan meel la dhig marka sidoo kale tan waxaan u soo qoraynaa iyana qormaseniska waxaan leenahay 1.5 lagu dhiftay 10 ku jibaaran 5 macna waxa weeye 100,000 marka hadaan 1.5 ku dhifano 100,000 waxay noqon doontaa 5 iyo 4 ibrad oo 150,000 waxaan sameynaynaa marka 150,000 maadaama arday kasta oo kamid ah 10kaas oo kamid ah 150,000 hal geed uu beeray geedaha la beeranay yihiin 10,000 waan isku dhifanaynaa imika waana isku dhifanaynaa waxaan leenahay 150,000 oo lagu dhiftay 10,000 taas isugu soo dhifso qaado santifikada caadi isugu dhifo 15,000 oo 150,000 lagu dhiftay maxay 10,000 waxaa ka soo baxaya hal 5 aan si fiican isaga hubino eberada badan waa hal 5 iyo 8 ibrad hal 5 iyo 8 ibrad ana waxa weeye waa 1 bilyan iyo 500 oo milyan oo geed ayaa la beeray hadaynu marka in u qorno qormasenis waxay noqon doontaa 1.5 lagu dhiftay 10 ku jibaaran 9 waa halkan waa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 marka waxay noqon doontaa 1.5 lagu dhiftay 10 ku jibaaran 9 marka jawaabtaas aynu fiiri doonaa waa xarafka ba markiisan waa 1.5 lagu dhiftay 10 ku jibaaran 9 sadarada xarafka ba ayaynu goobada gelinaynaa su'aasha waxaan u gudbi doonaa sagaalaad waxay u dhacaysaa sidan soo socota fududeynta faraqa laba tibxaale qaaska ah ha lagu daray 5 lagu dhiftay ha laga jaray 5 iyana bal in halkan ku soo eegno ha lagu dhiftay 5 waa ha lagu daray 5 oo lagu dhiftay ha laga jaray 5 waxay la egtaa u fiirso waxay ismaalaysaa xeerkii ahaa ba lagu daray ta oo lagu dhiftay ba laga jaray ta waxay la egtahay ba laba jibaaran oo laga jaray ta laba jibaaran xeerkaas isticmaalaysaa sidaadeed ha ku dhifaha waxa laba jibaaran plus minus ku dhifo waa minus 5 ku dhifo 5 meeqa waa 25 marka waxa ku jibaaran 5 iyo 20 jawaabtaas ayaynu fiirin doonaa ana waxaan uga jeedaa ha ku jibaaran laba laga jaray 5 iyo 20 ayaan uga jeedaayo marka waxaan leenahay ku jibaaran laba laga jaray 5 iyo 20 isla xarafka ba ayay iyana ku jirtaa iyada markaas ayaan xarafka ba aan sidaas u goob gelinaynaa su'aasha tobnaad marka la isku daro 5 xa laas 20 iyo 4 xa oo laas 20 ayaa jawaabtu waxay noqon doontaa tan meelar u aadmin halkan baan ku nagu aado 5 xa u fiirsaya si fiican la soo ardayo waa iska aad fududahay wuxuu ma adka ma adka waxay rabaan inaad fahamto ay doonayaan waxaan leenahay 5 xa la hoos dhiga 20 iyo maadaama lagu daro loo yiri balaas baad leedahay 4 xa la hoos dhiga 20 shajabka caadiga ah hoosayaasha hadii isku mid yihiin la iskuna darayo hal baa laga qaataa 5 xa waxaan ku daraynaa 4 xa maxaa soo baxayo 9 xa shaabad marka waxay noqonaysaa 9 xa oo la hoos dhigay 20 hadee waa xarafka ja oo ah 9 xa la hoos dhigay 20 waya taasna wada la fahamtaan jeclahay su'aasha waxaan u gudbi doonaa 11 marka loo qoro jibaar ahaan a lagu dhifto ba lagu dhifto a lagu dhifto ba lagu dhifto a waxa ay la mid tahay ogow marka halkaan joogto wixii a ah wixii ee ah fiir eedaas iyo eedaas
iyo eedaas waad isku dhifan doontaa yani dhinac isla xij iyo saddex soo maahan halkaasaan kugu qori u fiirsayaa lagu dhiftay waxay noqonayaan saddex hal soo salka ka qaado jibaarada oo aan hal isu geey meeqa waay marka waa saddex ku jibaaran saddex ba ayaa ku soo hartay ba lagu dhiftay ba laba jeer la isku dhiftay soo maahan ina waxaad leedahay ba lagu dhiftay ba labada ba hal xabba la ka qaado jibaarkooda oo waxaad isu geynaysaa oo hal iyo hala waxay noqonaysaa labo marka maadaama ay isku dhifsanaayeen ba ku jibaaran saddex maxaa ku dhacsan ba ku jibaaran labo halkaas aad ku soo koobi doontaa ma fahmaysaa yani wixii hal xabba ka qaado jibaaraduna isu geey wixii ba ah hal xabba ka qaado jibaaraduna isu geey saddex waaye hal xabbaynu ka qaadanaynaa saddexan dush ka saaraynaa maadaama kasta hal jibaar ay wadato dana laba xabba weeye halaynu ka qaadanaynaa jibaarada oo hal iyo hal ahna halkaasna ku saaraynaa marka ay ku jibaareen saddex oo ku dhacsan bi ku jibaareen labo ayaa jawaabta saxda waana xarafka xa sigamkaas isku go'an galinayna inaad fahamtay ila socoto rajayniya way ku iyo 12 marka la isku qaybiyo 18 ABL iyo hoos dhiga weeye 6 AP jawaabtu tan waxba yaan ku wariyay si fuudan ku sheegay maadaama isu qayb ay taa u fiirsiyaahe eedaas markaysaa kore yaa eedaas kor mu jeedaa eedan hoos la saar biidaas kor markaysaa biidan hoos la saar ya ha ku soo haray marka 18 hadii 6 loo qaybiyo meeqa maxsuusta 18 marka 6 qaybiso waa 3 waa 6 ku dhifan 3 hadda kor maxaa kaaga soo haray oo calaamada ana saarin waa l soo maahan l raacibis jawaabtu marka waa 3l qaabka ugu fudud ee lagu shaqeeyo 3lna waa xarafka ba sidaradeed halkaas ayaynu goobo geli doonaa xeerka dad isticmaashana oo xeerka jibaaradana waa okay laakiin sidan ay aad uga sii gaaban waaye su'aasha 13 ayaynu isla eegi doonaaye jawaabta ayaan dooran doonaa markaynu ka shaqeyno kadib wareega shaxanka leediga ee soo socda dhinaca markaysan midig waxa waa bata jaadan meeshan in loo baneeyay aynu ku shaqeynaa meel kala maadin mid ogaada wareega leedi waxa lagu helaa laba lagu dhiftay dhirir oo lagu daray laba lagu dhiftay bala arday hadaad qaacidadan inaad xifdiso ay ku dhibayso maadaama dhammaan afarta dhirar lagu siiyay iyagaas ayaad isku dardari doontaa guud ahaan ya shanxa u fiirso shanxa lagu daray 3 iyo shanxa lagu daray 3 iyagan isku dar maxay noqonayaan ya 10xa lagu daray 6 maxay noqonayaan 10xa lagu daray 6 intaas aad meel dhigato waxaad sameyn doontaa hadana 2xa laba jibaaran iyo 2xa laba jibaaran isku dar meeqa waa iyana waa iyana waa 4xa oo laba jibaaran soo maaha iyana maxay waa 4xa oo laba jibaaran marka 4xa oo laba jibaaran iyo 10xa lagu daray 6 ayaa dhamaantood isu geynaysa marka maxaa ku soo baxay adiga u qoraysay kala horayaan si kala jibaar weeyeen 4xa laba jibaaran lagu daray 10xa lagu daray 6 jawaabtaas inuu igu doonaa 4xa laba jibaaran lagu daray 10xa lagu daray 6 waaba jawaabta xarafka ba ay sax ku tahay 4xa laba jibaaran lagu daray 10xa oo lagu sii daray 6 halkaas marka aan goobo gelinayna taas waa intaas taasana yara ku fudud sida lagu soo qoro hadii laakiin hal laba dhinac lagu siiyo xeerkan inaad sax ku fudud wayo inkastoo afartiis dhinac laba dhinac kasta si iskaga soo horjeedaan hadana isugu mid yihiin waxa sameyn kartaa shanxa laba la ku dhufo laba jibaarna laba ku dhufeeda haddaan shanxa lagu daray 3 laba ku dhufan 10xa lagu daray 6 ku soo baxayso labaxa laba jibaarna laba ku dhufnana 4xa laba jibaar ma jibaaran ba ku soo baxayso haddaynu isku darnana intiiba ku soo baxayso qaabkaasna waad yeeli kartaayo cid ku diidayso ma jirto su'aasha 14 ayaynu isla eegi doonaa raadi okay
wax yar aynu hoos u soo qaadno. raadi bedka saddexagalka hoose adigoo adeegsanaya tibxaha aljabra adigoo adeegsanaya ayuu leeyahay, laakiin tibxaha aljabra maahan, meeshaas xogaa yara error baa ku jira. waayo qiimaan haysanaa anagu 4 sentimitir iyo 2 sentimitir baynu haysanaa, maadaama bedka la rabo 2 sentimitir dhinacaas kore ayay xaggaas ay leedahay, 4 sentimitirna hoos ayay leedahay. kulay waa qalad dhinaca errorka ah, balays male. marka waxaan raadinaynaa bedka saddexagalkaas in raadinaynaa. bedka saddexagal waxaa lagu helaa bed wuxuu leeyahay ila socohaya, wuxuu leeyahay hal hoos dhigay 2 oo lagu dhuftay sal oo lagu dhuftay maxay joog. markaad qaaxeerkan ila fiiriso kadib waxaad leedahay salkii muxuu ku yahay salka 4 sentimitir oo ayaa joogana waxayno ah 2 sentimitir oo halkaas ay laga rabo joogan, macnaha 2 sentimitirka halkaas oo kale ayaa markaas laga rabo. marka waxaan leenahay salkii meeqa waay 4 sentimitir waay, joogina meeqa waay 2 sentimitir waay. marka 4 sentimitir iyo waxaan isku dhifanaynaa aan inta halkan imaano wax yar halkan aan imaano. waxaan dhahnay bedka waxaa lagu helaa hal hoos dhigay 2 oo lagu dhuftay sal oo lagu dhuftay maxay joog, soo maaha. marka bedku wuxuu leeyahay leenahay hal hoos dhigay 2 oo lagu dhuftay salka waxaan la siiyay 4 sentimitir oo lagu dhuftay jooga oo ah 2 sentimitir. marka bedku wuxuu leeyahay hal hoos dhigay 2 oo lagu dhuftay 4 ku dhuftay 2 waa 8 sentimitir ku dhuftay sentimitir laba jibaan. saas daraadeed waxaan leenahay bedku wuxuu noqonayaa divided by 2 4 sentimitir oo laba jibaan. marka bedku waa 4 sentimitir oo laba jibaan. jawaabtaas ayaynu eegi doonaa waa xarafka x. markaysa xarafka x adigu xeerka la xifti, markaad xeerka xifdiso kadib salkii waa ka joogina waa ka isku dhifo lagu qayb intaas wax kala ma tiri ku dhifaaf macna lagu qayb leh. waaya su'aasha 15aad raadi wadarta beduleedka ee sadjibika soo socda adiga oo isticmaalaya xeerka. bed wuxuu leeyahay 2 lagu dhuftay dherer lagu dhuftay bal maya waa dherer bal isku dhifo 2 ku dhifo. waxaad ku daraysaa dherer iyo joog isku dhifato waa 2 ku dhifato. waxaad ku daraysaa bal iyo joog isku dhifato oo aad 2 ku dhifato. haddii xeerkaas ka soo gaabiyana waxaa la sameyn karaa in labada banaanka la geeyo, dherer balac lagu daro dherer joog lagu daro balac joog, kadib wixii ka soo baxo 2 lagu dhifto waa la sameyn karaa. okay isla xeerkan laftigiisan ku shaqeynaynaa waxaan sameynaynaa ugu horeyntii yaa ku dherer hortaan u qaadana u fiirso wariyaahe dhererku waa ka 10 sentimitirku waa dhererkii weeye yaa 7 sentimitirkuna waa balaci 5 sentimitirna waa joog. sidaas ayaynu qaadan doonaa insha Allah taala ila soo marka oo ku soo koobaya 2 bilfur dhererka maxaa haysanaa 10 dhererka waxaan haysanaa 10 balacna maxaan haysanaa balacna maxaan haysanaa 10 ku dhifto 7 meeqa waa 7 10 ku dhifto 7 waa 7 nacam, maadaama hal beegadu sentimitir yahay waa 7 sentimitir oo laba jibaaran bay noqonayaan lagu daray 2 hadana bilfur. markaan wadana waa dherer joog dhererka meeqa waa 10 joogina meeqa waa 5 isku dhif meeqa waa 50 waa 50 sentimitir oo laba jibaaran lagu daray 2 hadana bilfur. balac joog balaci waa imisa waa 7 sentimitir joogina 5 isku dhif marka maxay noqonayaan 35 sentimitir oo laba jibaaran. mid kasta 2 ku dhifayna waa isku darayna 7 ku dhif 2 meeqa waa 140 sentimitir laba jibaaran lagu daray 50 ku dhif 2 meeqa waa 100 sentimitir oo laba jibaaran lagu daray 3 ku dhif 2 meeqa waa 70 sentimitir oo laba jibaaran. kadib markaan isku dardarno 140 ku dar 100 yaahe 140 ku dar 70 waa 210 ku dar 100 310 wey waxa sabixtan 310 sentimitir oo laba jibaar. hadaba xarafkee waa xarafka ja iska fiiraadiyo ba oo kala fiir 301 aan ugu soo qoro qiyaanayaa mugta iska fiir marka si fiican iska qoro waa 300 maxay iyo 10 ayay jawaabta saxda ah noqonaysaa. marka waxaynu goobo gelinaynaa ja oo ah 310. su'aasha xigta ayaynu u sii gudbi doonaa iyana waxay noqonaysaa sida tan
xisaab beduleedka ay leedahay dhulwalbada ku sawiran dhinaca midig dhulwalbadaasi beduleedkeeda ayaad xisaabin doontaa bay anaga u qaadanayno 3.14 tan waxaan kusoo shaqayn doonaa qaybta xagga sabuurada ayaan kusoo shaqaynaynaa 20 cm waxaan haysanaa dhexroorka joogan waxaan haysanaa konton u fiirsiyahay joog maxaan haysanaa wariyahay joog waxaan haysanaa konton cm dhexroorkana waxaan haysanaa 20 cm aan joog iska soo hubiyo nacam kontowiye waa sax aye intaas marka la joogto waxaan rabaa marka qaacidada waxaa lagu helayaa beduleedka dhulwalba waxaa lagu helayaa laba lagu dhifto bay oo lagu dhifto gacan oo lagu daray gacan lagu dhifto gacanka oo lagu daray joog marka waxaan rabnaa bedka maadaama halkan gacan oo halkan dhexroor u yaalo dhexroorku wuxuu noqonayaa gacanku wuxuu noqonayaa dhexroorka laba loo qabiyo sidaas daraadeed ayaa gacanku wuxuu noogu taagnaan doonaa wariyahay gacanku muxuu taagnaan doonaa gacanka waxaan qaadan doonaa oo la ekaan doonaa 10 cm macnaha waa dhexroorka laba qayb marka waxaan leenahay bedku wuxuu leeyahay laba oo lagu dhiftay 3.14 oo lagu dhiftay gacanka oo ah 10 cm 10 cm oo lagu dhiftay oo lagu sii dhiftay laba lagu dhifto bay gacanki waa isla gacanka oo ah 5 cm 5 ayuu jecel yahay ma aqaan waa 10 cm oo lagu daray joogi oo ah konton cm intaas marka waxay leegtahay 2.2 ku dhifo 3.6 ee toon ku sii dhifo waxay noqon doontaa 68 waa 6.28 waa 62.8 ya 62.8 cm waxaa ku dhifanaynaa 10 lagu daray konton oo ah 60 cm macnaha waxa hadii lagu dhifto 2.34 hadii laba lagu dhifto waa 6.28 tan ku dhif marka waa 62.8 inta marka isku dhifana marka maxaa soo baxaya aan isticmaalno scientific waxaan leenahay 62.8 lagu dhiftay 60 waxa soo baxay 3768 3768 cm laba jibaaran waayo centimeter kaas isku dhacayo marka waa 3600 waa 3768 balan okay 3768 86 waa kan warno 66 nacam xarafka waxa weeye taawi markaysa ta وفرسيا 3666 ماشي ku qoran 3766 waa isku dhigir markaysa marka aad iska hubiyo insha Allah taala su'aasha ku xigta in gudbi doonaayo waa 17aad dhinaca maqan ee sida hadalka hoose dhinacaas way macna saxda inta ku yeelay ayaa suurayad nootadi adeegsanaya ba aragtida Pythagoras aslan buu wuxuu sheegayaa dhinacaas ugu dheer waa dhinaca maqan ee shakaalka hadda markaan dhinaca ugu dheer ma jirta dhinaca shakaalka weeye dhinaca shakaalka oo laba jibaaran halkan baan ku shaqeynaa xagga maba aadinaba ya dhinaca shakaalka laba jibaaran xarafka C baa loo qaatay markii laba jibaaro oo laba jibaarka laga saaro wuxuu la kaanayaa ee laba jibaaran oo lagu daray B laba jibaaran oo laga saaray S laba jibaar marka waxa leedahay A waa imisa A u qaada 3 B u qaada 4 A marka waa 3 cm oo laba jibaaran lagu daray B na u qaada 4 cm oo laba jibaaran marka 3 dan laba jibaarna waa skaal 4 marka laba jibaarna waa 16 markaan isu geyno waxa soo baxaya markaan isu geyno waxa soo baxaya 25 Soomaa marka 25 baan waxaan ka saari doonaa marka xididkan 25 ka saari doonaa ya shaqada in la fahmo rajayna shaqada very simple waa soo gaabsanaya mugti marka 25 cm oo laba jibaaran ayaan waxaan ka saarinaa marka xididki marka waxa soo bixi doona 5 cm خلاص marka waxaan eegi doonaa jawaabta 5 cm waa xarafka ta marka xarafta ayaan goobada gelin doonaa hadii Allah idmo hayo xeerka ma la fahmay xeerku waa xeerka dhirka dhinacaas u dheer dib lagu diro dhinaca yar ee laba jibaare ee dhinaca kale ee asna yar ee laba jibaare oo la sugiyay oo laga sarxay laba jibaar baa lagu helaa marka waa 5 cm raadi waa 18 raadi qiimaha xagasha egas ku jibaaran egas degree ama ha degree shangeysula qaabsan ee soo socda mid wana ogaana aslan ba hadii xagal gudeed geesule qaabsan lagu diro
dhammaan xaglaha geesoolaha si qaabsan oo xagla gudeedka ahi waa isku mid hal kamid ah haysato dhammaantood way wada haysataa egas hadda marka wuxuu noqonayaa asaguna 108 degree laakiin xeerka aan isticmaalno bal inta soo xisanayahay baan xeerka isticmaalno xeerka wuxuu ahaa egas degree waxa lagu helaa n laga jaray 2 lagu dhiftay 180 degree oo loo qaybiyay isla nt halka n ay tahay tirada xaglaha ama tirada dhinacyada geesoolaha qaabsan n marka waa imisa 1 2 3 4 5 sama waxaan leenahay 5 laga jaray 2 3 3 oo lagu dhiftay 180 degree hoosna waxa uu qaybsan 5 oo intii ahaayana 3 ku dhifo 3 lagu dhiftay 180 540 way u qaybishan nankasta 180 way marka adigu xeerka ku shaqee ama sida kor oo xifdiyo waxba tiraahdaa hadii ba geesoole qaabsan laga hadlayo xagla gudeedkiisa ama xagla gudeedkiisa hadaad mid kamid haysato inta kale waa isku mid weey hadii qayb lagu sii ku kala lagu dirna isku cabir weey haba isma dooriyaan marka 108 degree ayaynu goobo gali doonaa waa xarafka ah in sidaas ku goobo galinayna waayahay su'aasha marka waxaan ku doonaa 19aad labaatanaad baan iskaga simin doonaa qaybta tane way yara dheeraatay fogaanta u dhaxaysa labada barood ee hakad ever de hakad ministry iyo ever hakad 3 waa balanta halkan ku soo shaqeyno halkan ayaan ku soo shaqeyn waxaanayna sad bar oo kaba 3 ministry waa sawirkaas ya hakad ministry iyo waxaan kaloo haynaa barta labaad oo ah 0 hakad 3 marka ugu qaacidada fogaanta u dhaxaysa laba barood waxay ahayd waxay egas 2 oo laga jiray egas 1 oo laba jibaaran oo lagu daray y2 oo laga jaray y1 oo wada jibaaran intaas marka waxay leegtay egas 2 waxa ku noqonaya 0 waxa leenahay 0 egas 1 waxa ku noqonaya 0 daas 0 kale oo laba jibaaran oo lagu daray y2 waxa ku noqonaya 3 laga jaray maadaama ay wada tan kale waxa noqonaysa marka plus 3 oo waxaan leenahay oo laba jibaaran أنا واحد دحدان لقى جري سدحس مركز يسون قنيان بلاس أنت سبحان كسارنا حد لبجبار سبحان كسارنا حد لبجبار مركز حالنا هاي إبر مركز إبر كجرنا إبر ويه إبر لبجبارنا لو قدر سدح قدر سدح واللح لح لبجبارنا وصدن يلح وصدن يلح سبحان كسارنا حد لبجبار مركز حنا قدر أنتها صدن يلح مركز لو قدر إبر وصدن يلح له وإبر لبجبار وحاوي إبره وقدر مركز صدن يلح مركز كسارنا حد لبجبار كوحاسب بحيو لح ستردد lixda waxa raxsan doonaa hal beeg waayo hal beeg ay qaan doontaa waxay ku xiran tahay hal beeg marka hore lagu cabiray marka lix hal beeg waa jawaabta xarafka ta marka halkaas ayaan goobada ayaan gali doonaa su'aasha ugu dambaysa ayaan ka fiirin doonaa wareega guud ee saddex xagalka hoose waa okay سنحال كم كذا كتو وحل وسي سدح سدنا ورقسي لنا أقول رأي أشكال كي لنا عن كي ورقسي هدي ورق الودرو أصلا ما ورق سدح حاجة الوحال ولا نوع عضناها هذا ودرت لنا يسلو سوقي ورق سدح حاجة المحل ولا ودرت لنا عيدا ولا سوقي استرادي وحالنا ورق وحولي هاي لنا عقبات و7 سنتيمتر وحنا قدرنا لنا على بعض أو على 2 سنتيمتر وحنا قدرنا لنا استحاد أو 5 سنتيمتر marka laba saddex ma ku daran laba waa 5 5 ku dar 5 waa 10 marka saddex waxa soo bixi doonta jawaabtan ay tahay 5 10 cm na waa xarafka ja halkaas ayaan gabageli doonaa insha Allah ta'ala qaybtan intaas ayaan ku soo gabagabinayaa qaybaha markaas soo socda ayayno haddaan hal qayb kale ku soo koobi karo wayna ku soo koobina haddayna ku soo koobi wayna dhimale laba qayb kale ka dhigi doonaa hadda la dhabayo balse waxaan isku dayaynaa hal qayb oo kaliya أنا كوسو إن شاء الله تعالى أنت سنكسو مغوينيا بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.